صيع وحير بان هاد الربا وحير شقان أصعداي وحير بان إن الجوامين رباي يا فرل كفاية فرل كفاية الطور ربا سود وهذا صيع عشر قرية ولا شيء نادي فقانا سود وهذا أصحابتي إذا سود وهذا ومتيرينتي وهالجمياشي هول كمدالي ولي وهوغادي هول كمدالي ولي وهوغادي وعدي وداني صدو لأن يرى طريقة حس الدونتات كجرتها إن شاء الله هول كمدالي ولي وهوغادي هول كمدالي ولي وهوغادي وتاغن إلا أن تاغنا عوالي halganka islaamaha dhalinyarada iyo way soconayaan hadda nadiif waa guuleysatayo wax badan baan dhalinyaro inteed aadeen dhalinyaro inay aaway dhalinyaro aan dhihi jiro hadda ma sha Allah meel walba iyagi baa ku jira meel walba iyagi baa soo qabsanay meel walba iyagi baa dagaalamaya ya isku xirka meel walba ka socda ma sha Allah soo dhawaada in leeyahay aywaanka waa aragtiin shaqaan u socda maanta muusig ma jiro maanta kicin badan ma jirto laakiin waxaan rabaa inaan tuuro waa in salaamaya برنامج كشير قرية سود وهذا كل جوا إني سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن ليه هاي هذه آد بإني سلام يا دلنيرو وحن ليه اسكت دوبني يهلجم بينه بلا وقساق بنا يا هوي وقساق بنا هذا وقت كوه إن شاء الله وحير بنا هالربا ما أنتي برعوانك وحويه يا دفاع عدل كأديك عليه دلال ينين على شو يستاهل ملها taas waxaan qolada u wada way garanayaan waa dhalinyarada waxaan maanta marka ka hadli rabo ma aha waa kaas wallahi waxa u malaysaa wariniyo bukaan socod dib badan markiiba markuu inta ka arko xaq uu aada ku soo waca anigana markaan ka baxan balooga waa istaba soconayaan ku dhahay maalin walba 5 iyo 6 baan tuura marka guuliga gobanimo in leeyahay maanta waxaan ka hadli rabaa oo aan rabaa wax yar inaan ka hadlo baarlamaanka rabaa maanta inaan la hadlo maanta baarlamaanka la hadlaya baarlamaanku wuu xiraa bariyahan sidaynu ogeyn wuu maqnaa ما شاء الله thank you so much saad ii dhageysanaysan saad ii tixgelisay barnaamijka u share garaysan Allah in sharfo waxaan leeyahay ilaahay in sharfo baarlamaanka maanta la hadal rabaa waxaan dhihi rabaa baarlamaanku bariyahan wuu xiraa hadda waa la furay maxaan ka sugaynaa wadanka way arkaan baarlamaanku waxaan leenahay haddaanu nahay hooyooyinka iyo haddaan nahay dhalinyarada oo kacday iyo haddaan nahay inta wax garadka wadanka waad u jeedin meeshu joogo meesha wixii lagu wadi lahaa iyo wixii sharci ahaa iyo wixii muhiimka u ahaana idinka barkimada hoostooda iyo kuraasta ku fadhidaan salkeeda geliseen ishaanu idinku haynaa sida aad u shaqaysaan labadan week ama bishan aad u hawsha u wadaan macakan inuu ku sareeyo macakan inuu ku hooseeya baana fiirinaynaa waxaana in leenahay dalku ma rabo inaad dhahdo xagee baan wax ka raadiya iyo maxaad dhiilo ii haysaa inaad ku mashquushaan lama rabo baarlamaankii baa furmaye dhiil ma haysaa in la dhaho lama rabo baarlamaankii baa furmaye xagee baynu hore ugu soconnaa xagee baynu dadka u wadnaa taasaa la rabaa inaad dhahdaan inaad la xisaabtantaan baa idinka rabnaa nimankiina baarlamaanka ku jira ninka waliba baarlamaanka haystaan la hadlaya waxaan leeyahay war ragga baarlamaanka ku jira intaasoo biloodna uu xiraa baarlamaanku haddana ku maqan qaran dumiska oo soo dhawow farxiyad daahir wadaniyada soo dhawow abaay waa ku salaamaya haddana ku maqan welina aan rabin inay ummadda u shaqeeyaan iyagu siday dilaal u heli lahaayeen iyo siday cadowga ay u shaqeeyaan u qancin lahaayeen iyo sida meelaha ay rabaan ay uga heli lahaayeen oo fidmo u abuuri lahaayeen ku maqan baarlamaanka inta xirnaa haddana furmay weli ka maqan waxaan sugaynaa inaad talaabo ka qaadaan sugaynaa anagu shacabka haddaan nahay markaan waa soo jeensan hooyo iyo dhalinyarana markaan waa israacnay haddaad بسم الله الرحمن هذا ليسن صومالي دلنيرada joogta inaana isku xireyno wallahi hugunka socda iyo dibka in ku soo socda ilaahay baa sheekara dhalinyaradana ka imaan doona marka anagu haddaad idinku rabtaan banaanka layso banaan soo dhig uu dhamaado dadka banaanka isa soo dhigaya waa dadkan banaanka jooga awalba markaan cadowga iska kicinaynay markaan xaasidka iska kicinaynay markaan gumaysi iska qaadaynay dhalinyaro hoos iska abaabushay baa naga kicisay ragna waa noo dagaalamayeen oo la xiraayo waa la tooganay ragna hoostay wax ka qarxinayeen wallahi tan in ku soo socota oo hooyo iyo dhalinyaro ka soo socota midaad ka waaqsanaysiin maaha baarlamaankan la hadlaya ninka baarlamaanka haystaan la hadlaya fariintaas anoo nadiif qarana anoo gabdhaha halgama ah anoo hooyooyinka
halgamayaasha ee farxiyad daahir ka mid tahay ee jamiil jaje ka mid tahay ee khatar yar ka mid tahay ee maaragta ay ka mid tahay hana ka mid tahay ay ka mid tahay bishaaradaah gabdhahaas iyo wiilasheeda aan la koobi karin wiilasha aan la koobi karin aan inta ku soo koobi karin ee culimada leh ee mutacalimiinta leh ee caaqilada leh ee horay aad u cuni jirteen ee maantana dhalinyarada intay u istaagtay anigu barnaamij waxaan wadaa oo youtube-kayga ka baxa aan dhaho hooyo ii istaag barnaamij la dhaho hooyo ii istaag oo aan dhalinyarada kula hadlaa jira maxaa hooyo ii istaagti maanta waxaan ilaahay ku mahadinaya oo dhalinyaradana ku mahadinaya oo inta wax maqashana ku mahadinaya inay maanta dhalinyarada intay istaageen ayna dhageysteen dadka halgamayaasha oo ay ka mid yihiin maxamed cali oo ay ka mid yihiin sheekh yuusuf oo ay ka mid yihiin ma soo koobi karo maanta marka baarlamaanka waxaan leenahay war haddaad intaa maqnaydeen intaa haddaa maqnaydeen hadda dhiil ha raadinina oo xaggee wax ka jiraan iyo xaggee wax ka qarxinaa iyo xaggee maanta boorsada wax kaga ridanaa ha dhihinina ee sharciyada aad hoosta ku haysaan sharciyada aad meesha la fadhidaan sharciyada aad kuraasta hoostooda geliseen wadankuna uu u baahan yahay baas maraya in leeyahay ragga intaa idinkoo xiraydeen oo intaa fasax ku maqan maxaa shaqaysaan waa is ognahay maxaad shaqaysaan waxaad shaqaysaan ma laha intaasaad maqnaydeen maanta markii la rabay inaad kulligiin wada daahir tihiin oo soo wada noqotaan barkiin qarandumis iyo burburin iyo kala qoqob bay ku maqan yihiin sharcigu marka ma wuxuu xasaanadu ma waxay noqotay mid idinka aanina qaban laakiin dadka inaa idinku lacag soo qaadataanna inii fasaxda inaad dalka u shaqaysaanna aan inii fasixin taas may noqoto xasaanadu baarlamaankaan la hadlaya ninka madaxda u ah waan la hadlaya waxaan leeyahay waa inaad tallaabo ka qaado ragga hadda baarlamaanka furmay oo hawl taallo ku mashquulsan inay qaranka dumiyaan ku mashquulsan inay weli dhiil raadiyaan tallaabo waa inaad ka qaado hadduu maqan yahay oo xilkiina furmay waa in baarlamaanka uu tallaabo ka qaado annaguna hadda waa soo jeednaa dhalinyaro iyo hooyo waan soo jeednaa waana fiirsanaynaa wallaahi oo bilaa inaydinaan nacag markaan dhexdaan is haysana laakiin baarlamaanku ogaada indhaha in ku haynaa waxaan socda iyo waxaan is haysta iyo waxaan maaragtay waxaan arkayay dad xataa heer xataa waxa la gaaray been laga sheego dhaqaalaha wadanka oo waxbaa la dhunsada la dhoosi bal halkaas looga raadiyo anigu waan la socdaa tallaaban la socdaa waxa baarlamaanka ay maagan yihiin waxyaabo badan oo hadda aan sheegayno weli hubiskoodi ku jira oo aan ogahay marka waan sii afeefanaya daas way aan baarlamaanka hadda ula hadlaayo waxbaan ogahay ibnu cumar muxuu dhahay wad min cumar maxaa ka wadaa wad qaran ma kuwii waxaa tahay gabre ka tegay niyo marka waxaan leeyahay baarlamaankow shaqaanu idinka baahana farxiyo qabaabaa uu kugu soo maqan yahay haddaadan shaqo ku jirno oo bisi ahayn waxaan leeyahay marka aduu kugu soo maqan yahay balcan u dhigo marka waxaan leeyahay walaalayaal noo shaqeeya ma aha wallahi inuu ahayn markii waxa rabtaan samayn jirteen maanta ma aha markii waxa rabtaan samayn jirteen kolba dhiil kare maanta waxaan rabnaa inaad la xisaabtantaan ragga baarlamaanka ku jira oo shaqada burburinta iyo kala qaybinta iyo kala googa ku maqan kuwaasaan rabnaayo in ka sugaynaa inaad la xisaabtantaan waxaan isha ku haynaa bal sida wiigagan aad u shaqaysaan laakiin idinkama yeelayno in aad maaragta intaad soo noqotaan iska maqnaataan markaad soo noqotaanna aad sidii maaragtay hoos barkimooyinka hoostooda intaa gashaan sharciyada hoosta gelisaan aad nin walba u raadiso war xaggee baa arrinta ka bedelaa baarlamaanka sharcigan haddaynu ansixino inagu ina qabanaya si aanu u cuna qabateen bal xaggee aadna maanta ma la yeelayo wallaahi oo bilaahi inaan la yeelayn maanta adduunku uu kacsan yahay ama madaxweyne hore ha qayliyo ama mid dambe ha qayliyo ama facebook baa lacag la siiya hal dhaho ama dawlad baa lacag ina siisaa qarankaan lacagna siiya anaga qaranka annaga ciidaa lacagna siisa annaga ma nihin maaragta dad dhintay oo shisheeyo u shaqeeya oo rufiyaana ma nihin dad wadankooda jecel baan nahay dad wadankooda iyagaa lacagna siiya kaasaan lacagta aad raadinaysiin lacag waa la helaa waa dhamaataa hadda shaqaa u socdaa waa soo shaqaysana wixii alla isiiyaana alla ii barakayna anoo xaaraan cunina waa noolaana waana kaa nolol fiicnahay adiga murug baad ku nooshahay cabsi baad ku nooshahay nin baad u shaqaysaa gumaysi baad ku jirtaa malaayineerna waa tahay maxay kuu tarta marka lacagtu waxay kuu tarta male adeer waxay kuu tarta male aniga intaan jeega soo qaato markiiba layga sii qaataa kaa nolol fiican oo kaa degan oo kaa faraxsan waddankaygana firiigaas ugu shaqaynaya maalin baana sugayaa aan ku xor ugu noolaado adiguna aad gumaysi ugu noolaato xabsiga adii gasho aniguna aan xabsiga kugu maamulo oo qasaca yar ee qajafka ee loogu rido nimanka la xiro aan wax kugu rido oon ku xasuusiyo ku dhaho ka waran maalinta malyaneerka ahayd oo anoo baahan
oo volunteer ah oo maaragta rafaadsan oo baraf igu dhaco oo qurba jooga oo maaragta silicsan aad dhihi jirta lacag baa lagu siiyaa maantana qaado weliba ogaali aan suuga lagu darin baan ku siinaya cambuulo aan galka laga ridin baan ku siinaya inta xabsi ku geliyo maalintaasaa soo socota adeer adigu maantay lacag baa la siiyaa facebookaa saana facebook weligiin dhaha waxa rabtaan adeer waxaa rabtaan dhaha maanta laakiin ogaada hooyooyin haddaan inaan wiilasheedii idinka reebana inay maanta ogaadeen dhallinyaradu inay iyaga yihiin wax waddan kale gugaca idinku soo socdana ya mar dhow askari iyo argagixiso aan inii imaan baa dhalinyaro saa inii rifaysaa waana bilaabatay wayna socotaa ha u malaynina inaan aamusanahay ha u malaynina haddaad isleedihin waa la cabirsan yaho waddamada meelaha aad xakuntaan waa dansan yahin wallahi ina degsanayn wallahi fulkaana idinku socota aniguna waxaan sii diyaarinayaa caagagii baan inta kasii urinaya raashinka layninku ridi lahaa markaa xabsiyada gashaan xabsiyada markii layn geeyo caagaga layninku ridaayo meelahana ayni ka qaadaynaa waa inii sii gadaynaa bakhaaraan kusii urinaynaa iyo istoorada adiguna maanta sii qayli waxaa dhahdaa maxay tahay lacag baa la qaatay adeer lacag aniga waddankayga iga fiican aniga sidaada malyaneerna ma ihi laymana gubaysta haddana malyaneerna ma ihi nina uma shaqeeyo xor baan u noolahay xor baana ahaanaya dhallinyaradeydina xor baan la rabaa ma rabo maalin walba inay midi iska ka geliyaan ma rabo maalin walba inay isdilaan ma rabo maalin walba in darooga layga siiyo ma rabo maalin walba hooyadu inay barafkaas ku kufto ku kacdo kii ay silica ku korisana aad adigu cunto ma rabo adeer ma rabo adiguna adoo maskax iyo miyir iyo maanba laga haysto oo lagu xineeyo tumay aad shisheeye iisoo hogaamiso oo daba dhilif noqoto adeertaa ma rabo anigu xor inaan u noolaadan rabaa wiilkayguna xor u noolaada marka baarlamaanka waxaan maanta uga hadlayo kulli shay maxaa la dhahay fi shay ma eed wixii la dhihi jiray carabiga ma aqaaniye ya waxa weeye adeer waa in la xisaabtamaynaa ragga ninka baarlamaanka haystana waxaan leeyahay la xisaabtan ragga ilaa hadda baarlamaanka ka maqan iyagoo intaas maqnaa iyagoo inta aan waddanka u shaqayn iyagoo inta aan waxba qaban welina ku maqan burburka iyo kala qaybinta iyo ummadda baabi'eeda ku maqan waa ninkaas waa inaad tallaabo dadka ka qaado baarlamaanka sharciyada waa inay baas mariyaan waa in sharci kasta oo yaallo meeshaas dowladdaa u baahan shacabkaa u baahan dalkaa u baahan gumaysigaan isaga xoraynaynaay la baas mariyo ma rabno inaad waxbaa furmay dhahdaan haddana idinkoon waxa qabateen jirin aad fasax gashaan adeeraya wallaahi ha ku xisaabtaminina inaad soo noqotaan anigaa wax dooranaya wiilkaas meeshaa jooga ee aanu hoosta ka xiriiro ee silica iyo hoosta aanu ka xiriiro baa ku dooranaya farxiyay ka bax kusoo noqo waa iska xirta kaamirada abaay ka bax kusoo noqo aan kusoo qabtee ka dhac kusoo noqo kaamirada kaa xirantay marka waxaan leeyahay soo qabso farxiya ka bax abaay kusoo noqo anigaa iska leh laakiin baarlamaankow annagu ishaananu ku haynaa waddankana waad u jeediin waa u jeediin maanta anigu horta aad baan u faraxsanahay dadku waxay leeyihiin waxbay sheegaan laakiin wallaahi anigu meesha ugu fiican baan arkaa because ilaahay baa naga soo ururiyey ma ogtahay daad markuu yimaado oo roobku dhaco haddii xoolaha abaartu markay dhacdo ay xoolaha dhammaadaan oo abaartu ay eber noqoto weli waa kaa xiran ya farxiya caddi weli waa xiran ya ka bax kusoo noqo kaamirada xirtay abaartu markay dhacdo xooluhu markay baktiyaan sida dadku u yaaban yihiin roob baa imaada roobkaasaa dhaqa roob baa imaada roobkaasaa qasaala oo dhaqa maxaa ku dhacay farxiyo waa xirantay mise intay jirtaa farxiyooy maxaa ku helay inaade qabsootaan rabaaye waa ii qabsoo milaaday roobkaasaa qasaala oo qaado xaaqa marka iyaga roobkiyaa soo xaaqay meel kastoo ay ku jireen ku kastoo been noo sheegayo ku kastoo isukaay qarinayo ku kastoo aanu u haysanay inuu xoogaa quman yahay hadduu kuu furan yahay farxiya soo qabsa abaa u dhacaya marka ku kasta waxa weeye xaqi baa qabtay tartiib leefaan ku jiraya marka ku kasta xaqi baa qabtay xaqi baa soo xaaqay ilaahay baa banaanka wada keenay kuwa aanan ka filayn oon dad wanaagsan u haysanay oon lahayn alla ilaahay wallaahi hadhow dame haddana mar kale baa ilaahay banaanka naga keenay sababtaa ummadda ilaahay mar kasta ma cadaabo hadday iyadu ilaahay barido dhada ilaahu ciriirkan aan ku jiro iga saar ilaahay wuu ka saaraa ilaahay baa naga saaray marka hadda waxa weeye guul iyo gobonimaan arka anigu baarlamaankana sida aad hadda u shaqaysaan iyo sida hadda aad wax u qabataan baan idinkula xisaabtamaynaa taasaanuna wallaahi idinku tixgelinaynaa oo idinkula xisaabtamaynaa sharciyadana waa idinka fadhinaa
sharciyadana waa inay ka fadhinaa haddaad shaqayn weysaana waa inay ka shifaynaa waxyaabaha aad ku maqantiin baa ognahay waxa aad hoosta ka wadaan baa ognahay dadkiina qaarkood inaad shaqaysaan ma rabtaan annagana nama gumaysanay xasaanad baan huwana xasaanadda aniga kugu lahaa aawaade xasaanadda anaad igu korta anaa ku saaray xasaanadda anaa ku saaray kuumana saarin inaad daba dhilif u shaqayso kuuma saarin inaa igu gorgortanto oo dhiil igu raadiso oo xagee dhiil ka jira iyo xagee dhiil u socda aad igu dhahdo kuuma saarin ee waxaan kuu saaray inaad i xorayso waxaan kuu saaray inaa ii shaqayso maantana anigaa kugu daba dhegan facebook ama ka cabaad ama ha ka cabaadinna wallahi facebook sidaas buu inay farqiyada inay haysanayo waxayna haysatay awal gabdhay ahaayeene hadda rag baa yimid hadda baalal baan yeelana meel asaa nooga taaban kartaan malaha saas hadda maamataa ma aha waagaad maryaha iyo duruucda iyo gogoradahay dhahday maxay dhahday bishaaro gogoradii registonkay naga furan jireen maanta taa ma aha annaguna waa soo jeensanay ilkahan inu ku cunaynaa wiilashayadina way kaceen oo saasay inay qaniinayaan iyaguna maanta qodxaa korkayga ka taagtaagan ma aha waagaad i cuni jirta adeer guushana anaa iskale ilaahay baana isiiyey dowlad iyo rag idareemayna waan helay waxa aan raadinayo waxaan u taagnahay ama cabaad ama ha cabaadin way ku haysataa mar haddaa aragto islaan meeshaan ka qalinayso aminkan shaqo u socoto caawa laga yaabo inay 10 sac habeenimo ka soo baxdo ninka dhahay facebook baa lacag leesay jidka markuu ku arku dhahay dowladda meeqay ku siisay ee isaguna ogol inuu sababta qofku wuxuu yahay buu ku moodaa waxa la yiri tuug intaan tuug dhihin buu tuug ku dhahaa moqt isaga tuuga marka wuxuu aaminsan yahay qof kasta siduu isaga yahay inuu yahay because isaga tuuga oo damiirkiisi iyo dadnimadiisi iyo sharaftiisi waxa kala weynaatay shilinka uu soo qaadanayo oo daba dhilif isaga raba inuu dilo ka soo qaadanayo maalin walba waa la ceebaya kuwa xataa lacagta siiya markay ku xanaaqaan waxay dhahaan annaga wuxuu dirsanayo annaga adeegsanayni marka adeer maantay maalintaadi ma aha maalintaadi ma aha maanta waa maalintaydi ma aha maanta maalintaadi adeer maanta waa maalintii dhalinyarada maantay wax walba aan ooyo kor aan u ooyo hoos aan u ooyo maanta laakiin ma jirto maanta waddanka anaa iskale kenyaan lahayn adiga daba dhilifkaaye caloosh u shaqaystaa ay 10 kar dabaq dhistaan lahayn anaa iskale waana kaa cishanaya waana kugula xisaabtamaya baarlamaankiina marka waxaan leeyahay adeer dowladda saan waaye ma jirto idinka annaga in la xisaabtamaya annaga meesha in geysanay waxaan inii sheegayaa waa inaydan dhiilasha aa ku jirtaan iyo waxa aa wadaan ka shaqeeya adeer waxa inay hoos yaal ka shaqeeya waxa inay hoos yaal idin la xisaabtama ragga inii la midka ee wili maqan ee burburka ku maqan ee intaas fasix inta madeeq waay inta wixii aad soo raadinayso meen deeq waay wili ma waxaad u ciil qabtaa adigoo shaqadii lagu dirayna inaad ka maqnaato shilna igu qaadato aniga isoo gadato aniga taasna raalli kaaga ahaado baarlamaankana igu jirto taasaan kugu raacsanahay miya taasaan kugu qansanahay oo aan rabaa inaan kugu support gareeyo miya no ma soconayso la xisaabtan ninka madaxda u aho baarlamaanka la xisaabtan ragga baarlamaanka ku jira burburka waddankana ka shaqeynaya ilaa haddana aan soo xaadirin adeer haddaad la xisaabtami weydo anaa kula xisaabtamayo sababto anaad ii shaqaysaa ina adigana dhahdo xasaana wata aniga aaway midayda adeer anaa ku doortay waxaan ku xilsaar waxaan ku xilsaara adeer wiilkayga maalin walba in toori la geliyo wiilkayga maalin walba in kaniin la siiyo wiilkayga maalin walba in la shugarayo habarto inay meelaha baraf ugu dhimato adiguna aad halka iila fadhido xasaanaan leeyahayo boorsada lacagta aan wato lama qaban karo aniguna xuquuq aanan lahaan sharciga intee ku jira intuu ka shaqeeyaa sharcigaas qaalid hoy iisoo qabo waan bixi rabaa shaqaan leeyahay ya marka waxaan leeyahay aad iyo aad baan uga xumahay yaa soo qabsanayan soo qabtaa yaa soo qabtaa wax ku darsanayo shaqaan u socdaa yaa soo qabtaa labadoo kelma ka dhahay adeer riyaal tooshku waa ini saaran yahay mana idinka qaadayno annagu waa soo jeensana hadda annagaana iskale dalkan farxii soo qabsade aad ku muxuu ahaa aad ku habsatide adeer ma aha annagu mid kastoo timaada sidan baan u fadhiyaynaa wax kastoo wanaagoodan waan taaganayna qof kasta oo xumaan noo horseedayana wallay ka tahay faraqaan haysanaa weligaa cabaad weligaa lacag baa la siiyaa weligaa saan baa la yeelaa weligaa adiga tii boorsooyinka carabu kugu raraayeen oo keeyaatigu ku siinayayo sharafta kaa qaadayo bal ku bahdilay bal nimanka
لا تاجن أنا هدان العقات حتى ودن كي الدفاع يسال عقوقات وكاشر في بنا هذه لكن أديك محد قاعدته أديك الدبر دلف إن ضد كلا وش قيسو معدن هذا ننسيسو قبلها هذا ننسيسو حاسك هذا ننسيسو ويلك هذا وقرحيسو أديكنا أديك كده بس الجداد وقاعدت مركا أديك يعني مركا إسبر برجكتو يا شرف بدن أنا كاشرف بدن كوس دل بعتها marka adeer xasaanada aad adigu leedahay anaa ku dhiibay waan kugu la xisaabtamay wallahi inaan ka yeelin wallahi inaan ka yeelin soo qabso farxi yaa soo qabsanay soo qabtaan marka baarlamaanko maanta waxaan inay la hadlayo I know something marka waxaan leeyahay adeer riyaal ansixiye wax leeyni dhiibtay anaga aan noo raadinina maxay tadiil xagu ka jiray soo dhawow reer Djibouti ma sha Allah walaalaha soo dhawow Djibouti waan jecelahay ilaahay barakay wadaniyiin baatihin wadaniyiin wadankooda jecel baatihin reer Djibouti hadaa tahay cabdisalaam maxamed cilmi dad wadaniyiin aatihin wili ma arkaysid qowar Djiboutiana ama wiil Djiboutiana ama qof Djiboutiana oo madaxweynahooda ama dalkooda si kasta u xun yahay wax ka sheegay kan wax ka sheegana waa mutacallim doo meel soo fariisto wax riisana oo macquula oo aan qof ku caayin oo qof ku cambaareynin keen anaguna waxaan caado u leenahay madaxda maryaha ka dhignaa iyagoo bahalaaban keena iyagoo sinjeedooda cayna qabiilan wax noo dhimin baan koraa anagu taasaan dabeecad u leenahay daas way marka aynaan u wada tartami karin gool iyo gobonimo salaam baan ku taagaya wiilka Djiboutiyaanku salaam adaa salaanta iskale iyo dadkaaga iyo wadankaaga because qofku markuu isqiimeeyo ilaahay baa qiimeeyo ummaduna dib bay uga istaagtaa ilaahayna wuu qiimeeyaa laakiin anaga beenta iyo xumaanta iyo kaas maalintay jirto bal u fiirso ilaah baan kugu dhaarshay hadday islaan tahay waalan oo isasay qaadata ama xaraan ku noolo balaayo haysata ama hadduu nin waalan yahay ama hadduu mid ilaahay og yahay xaalkiisa qomoluuda yahay maalintii wax yar bal ilaah baan kugu dhaarshay hadda nimanka meesha isugu tegay ee iyaga sharafti laga qaaday inta meel lagu ururiyay ya dadka ay u shaqaynayeen dhan intay u yeereen meel ku ururiyeen si ummadda ay u tusaan karaamada uga qaadaan ummadda uga dhex saaraan baa qof intuu soo istaago buu halkan baa meel kasta ay ka soo baxayeen halkaa waxaad ogaanaysaa dadka dulligaahi oo gumaysiga u shaqeeya inay waalan yihiin oo damiir lahayn damiir male markaas adigu kugu cayna waxaad u shaqaysaa dalka war sharaf yaa sharaf badan marka labada qof ilaa baan kugu dhaarshay haddaad wax qaadanayso almiina labada markay isqabato tan dawladdu ku siisaaba la qaatay laakiin waaba jeclaan lahaaba dawladdu bal inay xoogaa xataa nasiiso waaba iska jeclaan lahaa been ma sheegayo because xataa nawaba taqaanba taasaa nasiib darra ah dawladda taasaan ku dhaliilaya anigu hadda because mucaaradku xataa kuwa facebooka ka qayliyo nala midkaahay lacag baa la siiyaa anigaasaa 100 jeer la ii ballan qaaday anigaasaa 100 jeer la iso marka laakiin weli ma arkin qof dawladda ka socdo xataa intuu isoo wacay dhahay thank you weli ma arkin laakiin waan arkay dad intay ii soo wacan ama balamiyaan idhahaya annaga ololaha nala gal barnaamijkan hayna halkan aan ka wada shaqeyno waxbana waa ku ogol lah marka waa runtooda inay lacag ugu tuhmaan de iyaga waa loo ogol yahay laakiin annaga dawladeedu ma ogola annaga dadku dib ka taagan laguma yaqaanba marka laakiin aniga wadaniyadayda ka weyn wax walba mana laga yaabo inaan wadankayga almiina inta qadaan wax qaadanay wadankayga ka qaadana maanta haday dawladdu idhaahdo waxbaad noo sheegtaayo maxay tay xoogaa baad hadashay halkaas ka qaylqaylisaay bal inta qaado waa ka qaadana because waa u shaqeeya laakiin maba ii oga soo ma shilinka qaado sharafta keen wallahi waa run axmed boos khayr allah siiye shilinka qaado sharafta keen ma ogoli laakiin shilinka qaado sharafta qaado inta waa ogolaa anigu shilinka qaado sharafta qaado waa ogolaa laakiin shilinka qaado sharafta isi ma ogoli waa tan maanta nimankayagii sharafta lahaa ee aanu ku fikiraynay ee aan weliba qaybtood aaminsanayn inay raqiimo le noo yihiin maanta la gaarsiiyo waay ee maanta loogu talagalay in ummadda laga dhex saaro sharafna wuu arka ilaah baa in ku dhaarshay waxaas ma wax la qaadan karaa mase ogolaan karaa in maalin walba nin gadaal ka riixayo oo cadow ah oo raba inuu sharafta ka dilo inuu ragga yaga maalin walba intuu mid soo istaajiyo macawista iyo surweelka kala baxo isagoo qaawan halkaa noo istaajiyo dhaho daawada ma yeeli karaa waa maya marka taas waay midda aan wiilashayada ka cishanayno dhalinyaradina waa kacday
والله dhalinyarada baa kacday oo hooyooyinka baa kacay oo haddana odayadii baan raacay thank you baan leeyahay odayada sharafta leh ee u istaagay inay is xoreeyaan ee u istaagay wax ay yihiin inay qaataan odayaal hadda waxa la sheegay xoogaa lacag la siiyay iyagana maalin baan usoo geli doonaa odayaasha oon kala saari doonaa laakiin hadda baarlamaankan ku dhegana aad baa u nimca barnaamijku inuu iska kay dhex galo ma garad marka wax walba waxa ka wanaagsan aniga in lay ogaado in lacag lay siiyo sharafta igala weyn adeer wadanka hadduu ii xiroobo taas adani ah laakiin adiga idhahaya lacagtan qaaday aniga ii shaqee ma kaa yeelay maxaan kugu shaqeeyaa adba gaal baa waxaad ka soo qaatay rufiyaan wadankayga raba inuu gurto aniga raba inuu ikufsadee intaasaan kugu shaqeeyaa taas waa ka dhimanaa adeer naftaa iiga baxaysa anoo barafkaas xamaalayo ordaayo silicsan baan ka dhimanaya laakiin wallahi ma yeelayo gumaysi ma yeelayo xaaraan bay ka tahay ma yeelayo qofna wax kagama rabo allah baan wax kaga rabaa anigu inuu igu badbaadiyo wanaaga aan gudbinayo inuu igu badbaadiyo wax calooshayda ilaahay baa mana rabo anigu waxaan ahay oo aan calooshayda ku jira oo wanaaga qofna inaan u sheego sharaf kaga raadiyo sharaf layn kagamaba helo soomaaliya haddaad tihiin sababta dalkiinaad u nixi lahaydeen sumcaddiinaad u nixi lahaydeen raggiinni baa meeshaa maraya marka sharafta soomaali laga raadinayo maba arkoba anigu ee dalkaygaan u baahanahay anigu adeer dalkaygaan cadowga ka ilaashanaya dalkaygaan leeyahay wiilka yar ee markii hore maskaxda laga qalday baan lee ii istaag hooyo idhegayso taas way barnaamijka hooyo ii istaago idhegayso aan u bilaabo alxamdulillahi rabbi alcaalamiin maantana afarta koonay kaga jiraan awalna way gaban jireen iyagaa lacayn jiray iyagaa wax loo qori jiray guriga gobonnimo intaasaa igu filan xoolaha aad raadinayso iyo lacagta aad lagu leedahay waa lagu siiyana ka badan baan helay maanta meel kastoon istaago markaan jidkaa maraayo inta badan dadku markay gartaan alla waa nadiif qaran laydhoo wallahi waxa ugu soo orda oo ma isla kaa sawira oo isla kay taaga oo dhaha maamkaala shaah qaado inta soo fadhiiso dhalinyaro waay sharaftaas waxaan ku helay iyagaan u bukaa iyagaan raadinaya iyaga waay kuwaan wax ka raadinaya muxuu yidhi xasan cali khayri allah daayo wal barakeeye sharafta aan wuxuu dhahay kama raadinayo shisheeye dalka waxaan ka raadinayaa shacabka waarintiis anigu sharaf nin caloolshi u shaqeeya iyo nin lacag qaata iyo nin raba dalkaan duminaynaayo kaale ila dumin kama raadinayo wiilkaa yar ee toorida lala dhacayo wiilkaa yar ee daroogada layga siinayo wiilkaa yar ee maskaxda qabiilkii qurunka laga geliya kaasaan ka raadinaya oo hooyadii ahay oo walaashi ahay oo habaryarta ahay oo eedadii ahay maalin dhaweyd waa inii sheegaan umala inaan sheeko laba wiiloo cabsan baa gaari aniga qof iqaadi lahaa u waday oo wiilkaygu waday oo meel igu sugaaya bay waxay u malayeen meeshii markuu saa usoo istaagay inuu sagaar iyo waxaysto daaqaday ku gargaraaceen isagana daaqadda way xoreyd daaqaday ku gargaraaceen uu ka baqay uu ka furi waana xagga camalaan kasoo socdaa meel isbitaalaan kasoo baxay waan soo socdaan uu iqaadi rabay laamigaa marka noo dhexeey isaga dhinaca kale ka taagnaa ana geeska kale waan soo goyay laba wiiloo waaweyn waayo marka niman waaweyn ah laakiin way cabsan yihiin tal waay iyaga dhan xataa saanta ma helayaan way dhadhacayaan way ku gargaraaceen yarkii intuu ka cabsaday buu gaarigii dhaqaajistay oo xoogaa ka fogaaday iyagii marka meeshooday ku hareen ma dabagelin markuu ka dhaqaaqay ilaa daaqada u xidhay markuu garaaceen wuxuu isdhahay kuwa xabadda wato la sheegayo wuu dhaqaaqay anigaa laamigaan soo gooyey markay arkeen gaarigii inaan u tegey labadoodba intay soo ordeen maama raalli ahow maama sorry maama inuu sagaar baan weydiisanayn wallahi wax kuma samayn rabin maama raalli ahow bay ku waasheen waa cabsan yahay saasuu u dareemayaa inaan hooyadii ahay saasuu u dareemayaa inaan sharaf ka mudnahay oo uu qalad galay oo gaarigii aniga isugayey meesha uu igu sugayey dartiis uga cararay taasuu dhibsanaya wuuna cabsan yahay ogow makaasaan marka cidlo dhigaa makaasaan dhahaa maanta uu cabsan yahay ma soo noqon karo waxaan hubaa wiilkaa hadduu heli lahaa wax gacanta soo qabta wax maaragtay wuxuu sheega wax maaragtay soo dhawaysta inuu intaasna iska dayn lahaa ma qofka isagoo cabsan dareemaya in uu qalad galay oo iga raali gelinaya gaarigaa meesha igu sigaya ka dhaqaaqay ilaah baan idinku dhaarshay intiina hadda igu jirtoy bal gartaa qaada qofkaas wiilkaas maxaan ku qiyaasaa wiilashaas maxaan ku qiyaasaa mase tahay inaan wiilashaas oo kaleeto aan soo qabanno aan badbaadino xagee kusoo qabsadaa marka cayayaankan shisheeyaha u shaqaynaya cayayaankan adiga markaa hadasho ku dhahay hol caqaado iska daa cayayaankan dalka gadanaya ee isaga marada laga dhigayo ee ku qanacsan baa joogeen laakiin taa waa diidnay annagaa u istaagayna wiilashayadaa u istaagaya inta fiican kuwa fiican baan leeyahay soo gala wiilasha luqadaha ku fiican oo haddaa ingilish ku hadasho haddaad talyaani ku hadasho haddaad sawaaxili ku hadasho haddaad jarmal ku hadasho haddaad swedish ku hadasho soo gala facebooka oo barnaamijyo ka sii daaya
soo gala facebooka oo dhalinyarada la hadla soo gala facebooka oo dhalinyaradan weydiiya brobleenka haysta soo gala facebooka oo dhaha war maxay tahay waxa inay haysta aynu connection samayno annagaa diyaarin la annagaa in la abaabulayna annagaa in la habaynayna laakiin dhalinyarada luqadaha taqaan luqadaa doonta ku hadal soo gal oo weydii halkan maanta waxay noqotay meesha wax lagu badbaadiyo meesha wax la isugu sheego dhalinyarada waxaan halkan u marinaya oon ka codsanaya anoo hooyadii dhalinyarada anoo nadiifo qaran waxaan ka codsanaya dadkiina luqad kastoo aad taqaan soo fariiso weydii dhalinyarada war annagaa diyaarinay annagaa diyaarinay lambarkaas iyo website meel inoo sameeya isku keen xira idinku waraysta ha la isdhex galo ilmahan aynu u istaagno luqadda ay yaqaanaan oo fahmayaan u sheega ku waraysta xaggee idinka xalinaa maxaa xaggee la iska fahmi la'yahay soo fariista formationada u gudbiya oo sida aan anagu u hadlayno ula hadla waxaa imaanaysa inay kulli soo noqdaan inuu nin walba fekero qof aan nolol rabin oo inuu xisaabtamo iyo inuu dib u xishoodo iyo inuu meel gaaro aan rabin ma jiro laakiin duruuf waa meesha dhigtay hal mar baad jaranjarada ka siibani lugtuu ka jabi lama kabaayo taasaa haysata dhalinyarada lugtay ka jabeen kabidna may helin marka yaa kabi kara intiina wax barataa kabi karta intiina wax barataa kabi karta waxaan leeyahay dhalinyarada ha loo istaago ha la soo baxo waddankeena innagaa leh dal iyo dibadna way socotaa waan isku xirannahay annagu waan diyaarinay idinkuna soo baxa naga mid noqda barnaamijyada soo diyaariya na soo weydiiya annagaa ini siinayna tobigyada annagaa ini siinayna haddaadan aadan xataa fikradu lahay annagaa ku hayna adiguna luqadihii baad haysaa soo baxaa ilmaheenna badbaadsano dhalinyaro idinku isbadbaadiya marka la arko dhalinyaradiinoo isku xidhanta waa laydinka baqaaya markii la arko dhalinyaradiinoo urura waa laydinka baqaaya markii la arko qof kasta idinkaa isu jebiseen laakiin idinku haddaad isku xir la timaadaan waa ka badbaadaysin yaa soo qabsanaya walaalayaalan soo qabtaa mise qof diyaar ma jiro yaan soo qabtaa waan salaamaya marka hadda qof diyaari jirin aad baan idin salaamaya waxaan leeyahay soo dhawaada dalkeena innagaa leh aynu u istaagno isku xir aynu muujino maaragtay aynu wadajir gacmo wadajir bay wax ku gooyaan insha allah gacmo wadajir bay wax ku gooyaan barnaamijyadana la socda barnaamijkii dhalinyarada barnaamijkii qoyska barnaamijka hooyo iyo istaag kulli youtube-kan wareejiyey halkaas igala xiriira insha allah wixii barnaamijyadaas qofkii wixiisa qaba barnaamijka nadiif qaran ee youtube-kaas uu ka baxaa kama baxo facebooka wixii talaa waan rabaa farmeeshinada soo dhiiba soo qora commentiyada soo qora haddaa daliil ku aragtaan soo qora haddaa waxaa dhibsanaysaan jiraan soo qora formationka soo gudbiya waddankeena aynu u istaagno dhalinyaro isku xir taladana qaata hooyooyinkana ha loo istaago nin qof soo qabsanaya hadduu jiro waa soo qabanaa hadduu jirinna waxa weeye waa ismaca salaamaynaynaa insha allah yaan soo qabtaa calaykum asalaam faadimo maxamed calaykum asalaam baay kulligin waa in jecla waa in salaamaya allah in barakeeyo sheer gareeya barnaamijka aamiin kulligeenba allah ina xafido cafiyo masaamax waxaan leeyahay wadajir iyo inagoo u istaagna waad aragtaan dadkii aynu wax u dhiibano waad aragtaan ama horaha ugu soo dhiibano ama haddaba haynoo hayaan waa aragtaan dadkii waad arkayseen xataa kuwii maaliyadaha loo dhiibay inay been sheegayeen si ay u kiciyaan ilaa waxaa furmay baarlamaankii oo maaragtay dhiilkii baa furmay si dhiil loo helo laakiin khayr allaha siiyo wasiirka maaliyadda bayle khayr allaha siiyo meeshaas waxaa la rabay in balaayo laga kiciyo laakiin markii wax walba saa loo hordhigay bay banjarmeen marka waxaan leeyahay ha laga fiirsado dadka xukuumadda meelaha muhiimka loo dhiibanayo ee ku shubada noqon kara ha laga fiirsadaan leeyahay guul iyo gobonnimaan leeyahay waddankeennan innagaa iska leh cafiyo masaamax qof soo qabsanaya ma jiro waa in salaamaya waa walaashii nadiif qaran oo ini leh kulankeenna ilaahay intaa kama dhigo idinkana dembigiina iyo dembi waalidkiina allah dhaafo ilaahayni cafiyo ilaahayni barakeeyo wanaaga aad jeceshihiina guryihiina iyo fidnada socota allah inay ka badbaadiyo idinkuna soo cafiya anigana cafiyo masaabaxa iga tihiin asalaamu calaykum